waxaan rabaa ilaahay dabadii inaan u mahad celiyo walaalkeen gudoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdixakiim maxamed sharafkan iyo qadarintan ilaa nala ka soo bixiyay magaaladii iyo bal xagga baratay xaggana baro nala yiri hoteelada aragteena banaanka arka walaalaheen aad iyo aad baan maartay walaalkeen cabdixakiim waxaan leenahay safarkaaga safar nabad Allah kaaga dhigo safar khayr leh ilaahay noo soo ka nabad celiyo waxaan rabaa walaalaheen annaga reer Puntland guud ahaan madaxweynaha iyo shacbiga reer Puntland waa u mahad celinayna abaal lama dhudhumiyaa la yiri runtii wax badan baa nala taray si fiican oo aan raali ka nahay oo maaragtay martisoor leh oo mar walba aan nimaadno waxaan nooga saacidayay marba marka ka dambaysa soo dhaweyn walaalnimo iyo dabac baan maaragtay yaan dareemayna waxaad sharfid waxaad maamuusid kaliya inaad darantaan inaad timaadeen u timaadeen dadkiinii iyo dhulkiinii iyo heelkiinii specially weliba golayaashii iyo dadka shaqada ugu muhiimsan noocayay baad ahaydeen marka iyo anigoo safar igu jiray oo doonaya inaan safro marka inaan iskula soo dhawatalo adigana sugabtahay noqoto idinkana soo dhawana idiin noqoto insha allah kaliya intaas baa cashada ahaa waana ku mahadsantihiin ajiibka iyo sida aad uga soo qayb gasheen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa